madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay xasuuq bini'aadanimo weerarada ka dhanka muslimiinta Rohingya ee lagu waxyeeleynayo dalka Burma ama Myanmar. kumanaan muslimiin reer Rohingya ayaa ka cararaya dhibaatada ay kala kulmayaan bundistaha dalkaasi oo aad uga tiro badan dadka muslimiinta iyaga oo loo gudbiyay qaarkood xuduudda dalka Bangladesh ee la wadaagaan. halkaasi gumaad ayaa ka socda ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga Mr Erdogan isagoo kumanaan dad kula hadlaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. kuwa indhaha ka xiranaya gumaadka ka dhacaya Burma iyaga oo hoos ku gambanaya dimuqraadiyad iyagana lamid ay yihiin kuwa muslimiinta dhibaateynaya ayuu hadalkiisa ku diray madaxweyne Erdogan. ku dhawaad 400 oo ruux ayaa ku dhintay dhibaatada qabaa'ilka ku saleysan ee ka dhacaya waqooyi galbeed dalka Burma gaar ahaan gobolka Rakhine oo dadka muslimiinta Burmese ah ay ku abtirsadaan. waxaana militariga arrintan ay ku tilmaameen inay tahay muqaawamo ka tirsan kooxda muslimiinta ee laga tirada badan yahay oo weerar ku qaadaya. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga ayaa dhankiisa sheegay in dhawaan ay qaban doonaan shir arrimahaasi lala xiriirinayo isla markaana madaxweynaha uu ka dalbaday qaramada midoobay in arrimahaasi jawaab cad ay ka bixiso. warar soo baxaya waxay sheegayaan in dawladda Turkiga ay qorsheynayso in ciidamo u dirto dalkaasi kuwaas oo muslimiinta difaacaya haddii qaramada midoobay go'aan cad aysan ka soo saarin arrimahaasi. waxaana militariga arrintan ay ku tilmaameen inay tahay muqaawamo ka tirsan kooxda muslimiinta ee laga tirada badan yahay oo weerar ku qaadaya. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga ayaa dhankiisa sheegay dhawaan ay qaban doonaan shir arrimahaasi lala xiriirinayo isla markaana madaxweynaha uu ka dalbaday qaramada midoobay in arrimahaasi jawaab cad ay ka bixiso. warar soo baxaya waxay sheegayaan in dawladda Turkiga ay qorsheynayso in ciidamo u dirto dalkaasi kuwaas oo muslimiinta difaacaya haddii qaramada midoobay go'aan cad aysan ka soo saarin arrimahaasi. maxamed ciise maxamuud, Somali Cable TV.